قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم قدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعده أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu yiri قال الله تعالى إلهي wuxuu yiri xadiiskan waxaa la dhahaa walaal xadiis القدسي ayaa la dhahaa xadiiskan. قال الله تعالى إلهي wuxuu yiri ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة saddex qof maalinta يوم القيامة aniga ayaa la doodaya oo Ilaahay leeyahay. Ilaahay wuxuu leeyahay ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة saddex qof maalinta يوم القيامة aniga ayaa la doodaya. qofka Ilaahay la dooda dhib ma yaa u dhiman wal ciyaadu billah. saddexda qofood oo Ilaahay ana la dooday oo dhahay waxa uu horeeyay oo Ilaahay noo sheegay rajulun a'da bi thumma qadara. qof oo alla dartiisa ayaa wax u bixinaya in dhahay oo ballanta uu qaadina ka baxay ayaa uu horeeyay qofka Ilaahay oo la dooday. midka labaadna waxa waaye rajulun baa'a hurran fa akala thamana. rajulun baa'a hurran fa akala thamana. qof xor ingati lacagtiisana cunay. qof xor ingati lacagtiisana cunay ayaa kamid midka labaad oo Ilaahay uu la dooday. qof xor in la gato ma banaana laakiin adoon in la gato way banaan tahay. midka saddexaad oo u dambeeya waxa waaye oo Ilaahay la dooday maalinta yawm al-qiyaama rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'dihi ajrah. qof in soo ijaartay shaqo ii qabo dhahay shaqada markuu u qabtay oo shaqadiisa uu dhameystiray lacagtan u diiday. waxaa loo baahan yahay walaal qofka hadduu qof soo ijaarto oo qof caamil soo wato oo shaqo ii qabo uu dhaha oo shaqadiisi loo qabto markii shaqada loo dhameystira xaqii lagu lahay inuu iska siiyo qofkii lacagtiisa inuu iska siiyo. laakiin qofkii oo maanta oo dhan shaqo ku hay oo wixii qaabkii uu qabo atay ku qabtay in lacagta aad u diido sharciga islaamka ma qabo. arintaasna waa arin hadda dadka badankooda ay u badan yihiin waaye. waxyaalaha aad iyo aad ma aragtay sharciga islaamka oo aad ugu diga ay kamid tahay. marka midka ugu dambeeya kaas waaye rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'di ajrahu. qof in soo ijaartay oo qof caamil soo watay markuu shaqada u qabtay lacagta u diiday.